السلام عليكم kusoo dhawaada walaalaha ku xidhan barteena hanaqaad adduunka waxa ka soo kala taliyay boqoraad u tiro badan qaar magacooda iyo taariikhdoodu way waareen qaarna way la dhimatay muuqaalkana waxaan idinku falanqayn doonaa maanta qisadii dhulqarnayn waa nin uu Allah subhanahu jalla fi ula quraanka ku xusay waana ninkii aasay ee ku xidhay godka Juuj wa Maajuuj laakiin siintaana bilaabina dad nagu cusub tahay subscribe naga ilaawin like gambaleelkana furta si idiin soo gaadhaan muuqaaladeena dambe ee soo socda aan bilaabano dhulqarnayn waa nin magaciisa laga cabsan jiray adduunka afartiisa dacalba waa nin ku caanbaxay dagaalyahanimo waana nin ka taliyay dhulka afartiisa geesba kuna caanbaxay hamiweyni waa nin alla wax kasta sabab u siiyey sababtiina raacay waana nin toddobada qaaradood ee adduunkaba ka taliyay wuxuuna ahaa nin ciidan aad u tiro badan leh waxa uuna ahaa nin Ilaahay aaminsan oo saalixiinta ka mid ah oo dadkana ugu yeedhi jiray iimaanka iyo inay Ilaahay keligii caabudaan mid mujaahidiinta ka mid ah ayaa waxa la sheegaa inuu dhahay adduunka waxa ka soo kala taliyay 4 boqor toddobada qaaradood ee dhulku ka kooban yahayba waxayna kala yihiin nabiyullaahi Suleymaan dhulqarnayn namruud iyo bukhtinasar laba xunxun iyo laba wanaagsan halkuu ku soo koray dhulqarnayn waxa uu ku soo koray magaalo dadkeeda la isticmaalsado oo la guumaysto oo uu ka talin jiray boqor aad u xumaa oo dadkana baad ka qaadi jiray markii uu dhulqarnayn u adkaysan waayayna wuxuu bilaabay inuu shacabkiisa la hadlo si ay iskaga saaraan oo isku difaacaan oo ay iskaga dulqaadaan dhibaatadan uu boqorkani ku hayo waxay gaadhay sheekadii dhulqarnayn boqorkiina wuu ciqaabay dhulqarnayn laakiin dhulqarnayn ma uunan ahayn mid quustay waayo wuxuu ahaa nin iimaanku biyadhigay oona si dhayal ah ku quusanaynin waxa kaluu ahaa nin xoog weyn oo aad u garba waaweynaa wuxuu kow ka bilaabay inuu iimaanka ugu yeedho dadkiisa laakiinse cid aqbashay ma jirin ee way kasii wada jeesadeen oo dhabarkii wada tuseen dhalinyaradii magaaladiisa ayuu soo ururiyey oo waa uu wacdiyey markuu u qudbeeyey kadibna way wada aamineen ilaa heer uu gaadho markii dambe ay ka bataan dadka isaga aaminay dadka aanan aaminin maxaa loogu bixiyey haddaba magacan dhulqarnayn waxaa la soo wariyaa sababo badan oo uu magacani ugu baxay waxaa ka mid ah inuu yaraantiisii ku riyooday isaga oo cadceedda u dhowaaday oo cadceedda labadeeda geesba qabtay waxa uu la wadaagay riyadiisii asxaabtiisa iyo dadkii ka agdhowaa balse ay wax ugu sheegaan ama ugu fasiraan waxayna ugu fasireen inuu noqon doono nin ciidan aad u xoog weyn maamuli doono oo xukumi doona adduunka afartiisa dacalna qabsan dadka qaar markay maqleen way ku jeesjeeseen dadka qaarna waxay ugu fasireen riyadiisa inuu boqorka daalimka ah labadiisa geesood ku dili doono ama inta uu dilo laba geesood u samayn doono waxaana la sheegaa inuu sababta riyadan ugu baxay magaca dhulqarnayn waxa kaloo la sheegaa inuu magaca dhulqarnayn ugu baxay horta qarn waa gees dhulqarnaynna waa laba gees leh magacan waxa kaloo la sheegaa inuu ugu baxay inuu 200 oo sano adduunka ka talinayay 100ka sanana ogow waa qarniye 200 oo sanana waa laba qarni waxa kaloo la sheegaa inuu timaha u samaysan jiray sida laba gees oo kale waxa kaloo la sheegaa maadaama uu dhulka geeska bari iyo geeska galbeedba ka taliyay sida laba geesood loogu bixiyay laakiinse dadka ahlu cilmiga waxay isku wada raacsan yihiin maadaama uu tagay qorax ka soo bax iyo qorax u dhac labada qayboodba sida awgeedina loogu bixiyay dhulqarnayn carabtuna markay bari iyo galbeed tilmaamayaan waxay dhahaan geeska cadceed ka soo bax iyo geeska cadceed u dhac markii haddaba dhulqarnayn ay ciidankiisii xoogaysteen ee aad u soo tiro bateenna waxa uu bilaabay adduunka geesihiisa inuu qabsado si uu xaqiisa u soo dhacsado waxa gaadhay waqtigii boqorka daalimka ah uu dadka ka qaadi jiray baadda laakiinse dhulqarnayn ma uusan bixinin dadkii loo soo dirayna wuu u soo hanjabay uuna soo garaacay uqaadanwaa ayay ku noqotay boqorkii daalimka ahaa waxa uu u soo diray dhulqarnayn boqorkii daalimka ahaa waraaqad ay ku qoran tahay waan dilay digaagadaadii waanan qalay dahabkii ay soo doonteenna ma aysan helin waxbana kuma hayaniyahow waxa uu boqorkii daalimka ahaa akhriyay waraaqdii uu u soo diray dhulqarnayn waxa uuna ogaaday ogaana inuu dhulqarnayn yahay nin aad u yaraa
wuxuu u qoray waraaqad uu ku jeesjeesayo uu leeyahay waxaan kuu soo diray niyow kubaddii yaraydna inaad ku ciyaartaan kugu soo diray kumaadan ciyaarin waayo nin ciyaarta jecel ma tihid haddii aad saa kusii socotana ciidankayga ayaan keensanayaa oo waynu isgelaynaa. Dulqarnayn ayaa waraaq kale u qoro waxa uu ku dhahay niyow anigu waxaan hubaa 200% inaan kaa guulaysanayo. isla markiiba boqorkii daalimka ahaa ciidankiisii ilaahay qalbigooda cabsi ayuu ku beero. boqorkoodii waxay ku dhaheen Dulqarnayn hala dagaalamin. Dulqarnaynna ciidankiisii uuba soo diyaariyo weerarkiibuu soo qaaday. boqorkii waxa uu ka xanaaqay hadalka ay dadkiisu ku dhaheen, deedna dagaalkii ayuu galay, meeshii buuna ku dhintay. Dulqarnayn ayaa xilkii dhulka la wareegay, adduunkana sinaan iyo cadaalad ka buuxiyey. markii uu Dulqarnayn dagaalkii ku guulaystay waxa uu amray in adduunka meel kasta la gaarsiiyo iimaanka iyo sinaanta iyo cadaaladda. meel kasta oo dhulka ka mid ahna waa uu aaday isaga oo faafinayay cadaaladda iyo xaqa. socdaalkiisii faafinta xaqa iyo sinaanta ayuu bilaabay Dulqarnayn. waxa uuna kula kulmay socdaalkaas intii uu watay. waxa uu kula kulmay 2 xidhmo dhexdooda ama 2 buurood dhexdooda qoom aanan luqad garanaynin ama aynan is-afahmaynin. waxa ay ku dhaheen niyow waxaana dhibay qolo foolfool xun oo la yidhaahdo Yaajuuj wa Maajuuj ma noo heli karaysaa waddo aan kaga badbaadno. waana ka Alle inoogu sheegay suuratul Kahf qisadan. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. waxay u bandhigeen Dulqarnayn in Yaajuuj wa Maajuuj ay yihiin kuwa aad u tarmaya dhulkana fasahaadinaya. waxaana u soo bandhigeen kharash inay siiyaan si uu bal uga caawiyo. waxa uu ku dhahay kharashku Alle siiyay ayaa ka khayr badan kaad idinku siinaysaane. waxaad samaysaan aniga xoog igu caawiya kharash idinkama rabee waxaanad ii keentaan birarkaasna waxaad soo raacisaan maar la dhalaaliyey. waxaan dhexdiinna yeelayaa gidaarkaas ayaan ku dhex shubayaa maartaas la dhalaaliyey iyo dabkaas. deedna ma awoodi doonaan Yaajuuj wa Maajuuj inay gidaarkaas ka soo daba dhacaan, mana awoodi doonaan Yaajuuj wa Maajuuj in ay dalooliyaan. markuu Dulqarnayn qorshihiisii u hirgalay siduu wax u rabayna ay u dhaceen, hawshiina uu soo afjaray, ilaahay ayuu u mahadiyey. waxa uuna dhahay قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء أمر ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. صدق الله العظيم. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. انت سينكسو كوبنا ورالي المقال كان انت المقال سانو كلا كل من وحين كتغينا نبدي إلهي دوشينها أهاتو.